السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر وذا تسي تكنولوجي ما أنت waxaan istusi doonaa hab yar oo fudud oo aynu hore uga soo hadalnay barnaamijka TikTok gudihiisa hadaba habkani wuxuu yahay markaynu inta badan adeegsanayno Microsoft Word haddii aynu qorno nabiyullaahi maxamed magaciisa sallallahu alayhi wasallam inaynu helno qoraalka yar ee sida uu quruxda badan leh haddii marka aan tusaale ahaan soo dhaweeyo halkan waxaad arki kartaa inaan qoray sallallahu alayhi wasallam anigoo sidoo kale adeegsanayn keyboard carabiya ayaan qoray sallallahu alayhi wasallam soo kale halkan waxaad ku aragtaa inaan qoray allah iyadoo si sax ah ayda soo kale maxamed halkan jalla jalaaluhu halkan waxaan ku qoray bisim baan ku qoray haddii aan bismillaah qoray waan qori karaa haddaba maanta waxaan rabaa inaan muuqaalkan amba casharkan yar kooban aan isku tusno commands-kii amba shortcut-kii aad u adeegsan lahayd marka rabtid in intaan qortid hore isagoo kooban baynu ka soo hadalay hadda laakiin se waxaan dul istaagi doonaa isagoo faahfaahan dhammaanna hadhow waxaanu isku daydoonaa inaan qaybo kale soo diyaariyo dhammaan symboliska islaamiga ah ee ku dhex jira Microsoft Word iyo sidoo kale shortcuts-ka loo adeegsado okay haddaba haddii aynu imika Microsoft-gii aynu ku guda jirno waxaan u baahanahay horaantiiba inaan qorno maxamed haddaba markaynu maxamed qorayno ka horuna iska baabiinay markasta oo aad rabtid inaad wax islaami ku saabsan qortid amba qoraal sidan oo kala waxaad ka bilaabi doontaa sidan haddaba markaynu maxamed qorayno waxaynu qori doonaa xaggan shaashadan waad ka arki kartaa haddii aan kugu soo qoro description-kana iyagoo is hoos yaala waan kugu soo qori doonaa haddaba waxaad qori doontaa f haddii f ta hore weynaato d da iyo f ta dambaba waa inay yaraadaan kadibna a baa qori doontaa waxaad isku qaban doontaa alta oo altada horreynayso kadibna egas ayaa taabanaysaa lamana baahan aad u haysta hal mar baad alta iyo egas taabanaysaa alta egas marka uu taabtay wada aragtaa wuxuu isku bedelay sallallahu alayhi wasallam ayuu isku bedelay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ayuu isku bedelay haddaba goormuu qormayaa sallallahu alayhi wasallam haddii imika aan intan magac kale qoro oo halkan aan ku qoro faarax oo kale waxa laga yaabaa inaanan haddii aan siraha seen imika oo kale u qor inaanan u qorin inaan igu qormin nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam hadaba alteega sadaan taabto hadda wuu qormay laakiin si mararka qaar waxa dhici karta haddii aad maxamed adoo aan qorin aan ku qormin sallallahu alayhi wasallam oo uu qormo lambar caadiya amba tira caadiya okay hadaba waxaan ku sii doonaa allah waan ku sii doonaa soo kale allah marka qoraysid horta wax ilaahay ku saabsan waa inaad soo qortaa amba qoraalka waxa goor oo ka quseeya allahu akbar oo kale amba allah oo kale markaad soo qortid isagana sidii hore ayuu mad qori doontaa haddii imika kanaan iska masaxo waxaan oran doonaa isagana f halka hore waxaynu qornay markaynu sallallahu alayhi wasallam qoraynay waxaynu qornay a bay qornay laakiin si halkan waxaan qoraynaa 2 intaas may kala duwan lambarka ugu dambeeya ay kala duwan kadibna altaaga isba taabanina kadibna waad aragtaa inay isku bedeshay allah inay isku bedeshay soo kale halkan waxaynu yeelaa inaynu nabi maxamed magaciisii oo carabiya intan oo dhan markaan qoraayo anu keyboard carabi ma adeegsanayo waana aragtaa baan filayaa haddaba marka nabi maxamed magaciisa aan rabno inaan qorno oo maxamed saxa oo carabiya oo sidan u qoran inkastoo isaga aan ku qori karno keyboardka laakiin isagana waxaan qoraynaa f markaan f qorno oo ay ka midaysan yihiin intaas waxaan qori doonaa 4 baan qoraynaa markaan 4 qorno intii yareed baan taaban doonaa alta egasa wada aragtaa saas isku bedelay halkan oo kale inta badan haddii aad aayad soo qortid amba waxyaabo aayad ku saabsan haddii aad rabtid in Ilaahay subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu intaas oo kale ayaad u adeegsan kartaa haddaba halkan imika waxa inoo yaala jalla jalaaluhu sidee ayaan qori karaa amba markaan qorayo maxaan rabaa in adeegsado isagana waan iska masixi doonaa marka imika jalla jalaaluhu aan iska masaxnay waxaan eegi doonaa bal isagana commands-kii lagu qorayo jalla jalaaluhu isaga waxa lagu qorayaa f b marka inta qortid waxaad oran doontaa alta egas baaranaysa wad aragtaa soo kale halkan bisim baa inoo yaala inkastoo bisinkan kooban yahay waan isku dayi doonaa isagoo dheer in soo geliyo laakiin si halkan bisin yar oo kooban oo bismi oo kaliya ayaa inoo yaala marka qaarna sida u kala dambeeyaan update-ku ayuu soo wada bixi doonaa mar baa jiri doonta inuu ku soo baxo dhammaan bisinka isagoo oo dhameystiran oo bismillaahir rahmaanir rahiim aad u dhameystiran tahay haddaba bisinka marka rabtid inaad qortid isagana waxaad qori doontaa amba adeegsan doontaa intan adeegsan doontaa oo la mid ah intii markii hore markastana oo rabtid inaad kelmad aad qortid oo kuwan ka hadlaynaa waxaad ka bilaabaysaa f baad ka bilaabaysaa isagana waxaan qoraynaa
d baan qori doonaa isaga 2 jeer bay soo celin doonaa halkaas waa inuu space yar inoogu dhaxaadaa kadib marka intaan qorno seeni caadiga ahaa alt x ayaan oran doonaa marar badan waxaa dhici karta adoo aan qoraal quseyn haddii aad istiraahid qoraal aan quseyn waxaad qoraysid oo hadal caadi ah oo ku dhex jira dee ambaanada magaca maxamed soo xusin ay istiraahid bal qor maxaa dhici kara saan bay noqon doontaa waxa laga yaabaa inay ka noqoto lambaris baa laga yaabaa inay ka noqoto imika tusaale ahaan oo kale haddii aan eego mid lambaris noqon karta oo versionada amba updates ku soo kala duwan yihiin marar badan waxa laga yaabaa inuu ku soo saaro 2220 tusaale ahaan oo kale haddii aan qoro fdf3 alt x hadaan idhaahdo waad aragtaa saasay ka noqonaysaa haddii aan dee wax aanad u jeedin amba aan maxamed soo qorin amba aad qoraal caadi soo qorin saan bay ka noqonaysaa amba wuxuu ku soo qori doonaa 22 intaas ku soo qori doonaa amba 220 oo aan dee wax koodo aan waxba quseyn ba ku soo saari doonaa laakiin si markaad rabtid qortid waa inuu ahaadaa waxa aad qoraysaa wax quseeya maxay heetolay waxaan aad ka hadaysid haddii marka aad rabtid sallallahu alayhi wasallam qortid oo kale deynaa maxamed wayna ku horeeyaan ba magaca maxamed oo kale wayna ku horeeyaan saas bay u adeegsan kartaa dadka badankoodu waxay adeegsadaan intaan oo kaliya meel koobiyeystaan bay meel dhigtaan oo kadibna markaas ay ku dhex tuuraan qoraal qorayaan san baa runtii uga fudud insha Allah waxaan isku dayi doonaa inaan qaybo badan ka soo sameeyo aad iyo aad baad mahadsan tahay haddii aad halkan muuqaalka soo gaadhid waan arkay in muuqaalkan kooban yahay soo kale waxaan jeclahay inaan soo diyaariyo dhowr muuqaal oo dambe oo uu ka mid yahay sidii aynu kanaalkan hadda iska daawanayno maadaama uu 6 bilood oo isku xiga oo hawada ka maqnaa aynu u soo celinay amba haddii kanaal YouTube laga banner gareeyo sidii bala u soo furan lahayd iyo hawadadii aad u mari lahayd qof kasta isaga yaqaan soo dacwoonaya laakiin si hadana waxa jirta hab iyo wado la raaco marka la rabo ina waxaan maxay tahay la adeegsado aad iyo aad baa maasantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi